kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin khiyaarta hanno hawada ku saaxiibnay meel kasta oo dunida aad ka joogtaan. halkani waa qaaradda TV oo aad kala socotaan wararka caalamka gayiga Soomaalida iyo guud ahaan geeska Afrika. qodobada aad wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Laascaanood oo cirkaasi isku shareeray. odayaal dhaqameedyada ka socday Muqdisho oo haatan ku sugan jiida hore ee dagaalka ee duleedka magaalada Laascaanood. dhanka kale odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda gobolka Burco ee maamulka Somaliland oo baaqa hawada u mariyay Muuse Biixi. afhayeenka ciidamada SSC oo wacad ku maray inaysan jirin wax heshiis ah oo ay la yeelan doonaan maamulka Somaliland waqti xaadirkan intay xaaladdu sidaa tahay. qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaad halkan ku maqli doontaan haddii guula saamaxo. waa maalin Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 27-ka bisha 3 2023. haatana qodobadaasi oo faahfaahsan. haddii aan ku horeyno xaaladaha magaalada Laascaanood ayaa cirkaasi isku shareeray kadib markii maalintii shalay ahayd ay dagaalo xun halkaasi ku dhaxmareen ciidamada SNM iyo kuwa SSC. dhaawacyo iyo weliba dhimasho aad u badan oo labada dhinaca ayaa halkaasi ka jira, walow la riixay ciidamada SNM oo lagu celiyay fariisamihii markii horeba ay kasoo ruqaansadeen iyagoo isku dayayay in si xoog ah ay ku furaan wadada halbowlaha u ah magaalada Laascaanood. ciidanka SNM ee maamulka Somaliland ayaa ujeedkeedu waxa uu ku qotomay in la baajiyo odayaal dhaqameedyada la sheegay inay ka soo baxeen magaalada Muqdisho toddobaadkii loo dambeeyayna ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Muuse Biixi dadka sida gaarka uga agdhow isla markaana siyaasadiisa la socda ayaa waxa ay ku eedeynayaan in ujeedkiisu yahay in aysan odayaashaasi u kurgelin xaaladda dhabta ah ee meesha ka jirta, iyadoo la og yahay dacatiye aad u badan iyo weliba dhibaatooyin inay ka geysteen ciidamada SNM ee maamulka Somaliland magaalada Laascaanood dhowrkii bilood ee inoo dambeeyay. haddaba si image-ka ama sawirkaasi uusan u gudbin oo aysan odayaashaasi u ogaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha taala iyo bilicdii magaalada Laascaanood oo gebi ahaanba dhulka ay ku dareen ciidamada SNM kadib markay ku garaacayeen madaafiic ilaa dhowrkii bilood ee inoo dambeeyay. magaalada ayaa dhulka lagu daray goobihii ugu muhiimsanaa sida caafimaadka, iskuulaadka iyo weliba shaaracyadii magaalada oo gebi ahaanba dhulka lagu daray ayaa halkaasi ka muuqata. waxaana dhici karta in odayaal dhaqameedyada ka socda koonfurta haddii halkaasi ay tagaan oo ay arkaan dhibaatada halkaasi ka jirta inay u janjeenaan dhanka dadka markaasi laga gardaran yahay la riiqayna magaaladooda. haddaba si arrinkaasi aysan u dhicin, amar ayuu wuxuu ku bixiyey Muuse Biixi in ciidamada SNM weeraro iyo weliba madaafiic isdaba joog ah magaalada amnigeedana uu u qalqalgeliyo, iyadoo la og yahay in magaalada aysan ku sugnayn wax maxasa lagana qaxay dadkii u ehelka ahaana ay meel kale qaxooti ku yihiin, isla markaasi in aysan jirin axad kale oo fooda soo gelin kara magaalada si loo baajiyo odayaashaasi loogana hortago madaafiic lagu garaaco isla markaasna weeraro lagu qaado ciidamada halkaasi ku sugan. haddaba odayaal dhaqameedyadii la filayay inay gaaraan magaalada Laascaanood oo si nabad ah ku tagay halkaasi ayaa saaka waxa ay ka soo duubeen muuqaal la yaab leh furinta hore ee dagaalka. waxa ayna sheegeen in magaalada Laascaanood ay gebi ahaanba dhulka ku jirto isla markaana aysan jirin axad bili aadam ah marka laga reebo ciidamada dagaalamaya inaysan magaalada ku sugnayn. iyadoo la og yahay in lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa odayaashani waxay ku soo aadayaan magaalada xilli magaalada aysan ku sugnayn haween iyo wax maxasa, waxayna halkaasi ku cadeeyeen in indhahoodaba markhaati ay u yihiin oo ay arkaan in magaalada laga qaxay oo aysan jirin wax ku sugan ciidamada dagaalamaya mooyaane. iyadoo bisha barakaysan ee Ramadaan lagu jiro loona baahan yahay afur, martiqaad iyo weliba soo dhaweyn odayaasha ka socda koonfurta ayaa waxa gebi ahaanba meesha ka maqan hab maamulkii iyo weliba soo dhaweyntii ay ka heli lahaayeen magaalada Laascaanood maadaama ay halkaasi booqasho ku yimaadeen. qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada oo meeshaasi ka hadlay isla markaana warbaahinta u soo gudbiyay xaqiiqada dhabta ayaa waxa ka mid ah hadalladooda sida tan. iyo isabadii ka hortagay soo kaxay iyo kuwa jidka isu taagay inta hadda joogta kalaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka oo beerima yaalla kumayaal bay soo dhaweyn lahaa wixii dumar ahaana dee ma joogaan magaalada waa ka maqan yahay, wixii rag ahaana difaacay ku jira. odayaasha yarunbaa marba meel istaagay. taa waxaan leenahay sidaa u ogaada qalbi wanaagsan iyo wanaag iyo
waa hagaaga haddii intaasi aan kaga nimaadno xaqiiqada dhabta ah ee taalla magaalada Laascaanood ayaa ah sida odayaashaba ay ka dhawaajiyeen oo ah in halkaasi dumar caruur maxaas wax jooga aysan jirin dadkuna ay u qaybsan yihiin garaadada oo dagaalka howlgelinayo iyo weliba inta rag ahayd soo hadhay oo inta la laayay maayeen inta noolba ay ku sugan yihiin furinta hore ama jiida hore ee dagaalka inta haddana ugu gudubno odayaasha waxaa sidoo kale baaq soo saaray odayaal dhaqameedyo isla markaasi ku sugan gobolka Burco ee maamulka Somaliland waxayna baaq u direen ka dhan ah Muuse Biixi Cabdi iyaga oo ku tilmaamay in wadanka uu u horseeday burbur iyo weliba nolosha oo sii xumaanaysa Somaliland waxay wajahaysaa maalmo madow maadaama laga xiray ila walba oo muhiim ah isla markaana ay isaga kala gooshi jireen gaadiidyada geeya qudaarta iyo weliba raashimada waxaana ka xiran wada walba oo halbowlo u ah oo uga tagi jirtay koonfurta iyo weliba dhinacyada kala duwan ee magaalada Hargeysa ay uga soo gali jireen dhaqaalaha haddaba mid ka mid ah odayaashaasi oo hadlay isla markaana fariin u diray Muuse Biixi ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa sida tan Muuse Biixi oo la yaab ma lihid Afrikaan baa tahay Afrikaankuna cadaalad iyo caqli saliima midna ma leh dadkan ku nool Somaliland maca kuwa dawarsanaya kuwa Itoobiya ka yimi maalinta qiyaamaha in laga xisaabtamayo ma ogid intaasi markaan uga nimaadno odayaashaasi waxaa sidoo kale hanjabaad ka dhan ah maamulka Muuse Biixi uu horkacayo hawada u mariyay taliyaha guud ee ciidamada SSC ahna afhayeenka dhanka ciidamada waxa uuna sheegay in aysan jirin haba yaraatee wax wada hadal ah iyo wax barya ah oo saacadani looga baahan yahay maamulka Somaliland inta ciidamada ay ku sugan yihiin xerada Gooja Cadde madaafiicdana ay ku garaacayaan magaalada ayaa waxa gabi ahaanba meesha ka baxaysa in ay dhacdo wax heshiis iyo wax wada hadal ah wiilkan isaga weer baan hadda qaadi doonaa aan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba mar taagta mar tamarta waxba hala harin diyaar baa lagaaga yahay halkan haddaad ku nabad gasho halka aad joogtid oo in badan aan ku dhowreynay xabad joojinta oo ku ilaalinaynay in la gaaro meel laga wada hadli karo aad tagto haddaad u bedeshay luqadda noocaasa ficilkeedina maanta laga arkay waxaan ku leenahay soo dhawow waa hagaag daawadayaal intaasi waxa ku soo afmeeraynaa war waxaan kaga helnay dalka dibadda gaar ahaan aan dowladda ku saareynay xaaladda cakiran ee magaalada Laascaanood tan iyo kulankeena xiga ama wararkeena dambe waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo